barnaamijkeena qubanaha waxaan idinku haynaa Suudaan oo holcaysa kadib markii ay generaaladii ciidamada uu ka dhex qarxay dagaal xooggan oo gilgilay dalkaasi. haddaba maxaa la isku hayaa xagaysa Suudaan u socotaa? ergeyga Soomaaliya ee abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay wax ka bedesho qaabka loo wajaho arrimaha bini'aadminimada lana joojiyo isdhexyaaca hay'adaha dawladda. iskuulada islaamiga ah oo ku yaala Kansas City oo arday baraya waxbarashada diinta iyo midda maadiga ah. kula wanaagsan dhamaantiinba barnaamijka qubanaha VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. dagaal xooggan ayaa ka bilowday dalka Suudaan kaas oo u dhaxeeya ciidamada militariga iyo ciidamada RSF. in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay dagaaladan gilgilay dalka Suudaan. dalalka galbeedka midowga Afrika qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ah ayaa waxa ay dalbanayaan xabad joojin degdeg ah. ururka IGAD ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu madaxweynayaasha Djibouti, Kenya iyo Suudaanta Koonfureed u diro Khartoum si ay u dhexdhexaadiyaan labada generaal ee dagaalka uu u dhaxeeyo. haddaba maxaa la isku hayaa? waana sidee xaaladda ajaanibta Soomaalidu ay ku jirto ee dalkaasi ku sugan? warbixintan waxa inoo diyaariyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. kadib muran iyo loolan awoodeed oo muddo soo jiitamayay ayaa waxaa sabtidii uu dagaal ka dhex qarxay generaaladii ciidamada dalka Suudaan awoodda ku marooqsaday 2021 oo hadda iyagu isku jeestay oo midba kan kale doonayo inuu awoodda kala wareego. daryanka rasaas culus iyo qaraxyada ayaa gilgilay magaalada caasimadda ah ee Khartoum. labada nin ee awoodda Suudaan ku dagaalamaya waa madaxa ciidamada Suudaan Cabdilfataax al-Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Hamdaan Daglo oo taliye u ah ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF. dagaalka ayay ciidamada Suudaan adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka oo ay ku duqeynayaan fariisimada RSF oo ay muddo xulafo soo ahaayeen, iyadoo taangiyada iyo madaafiicda culus ay dagaalka qayb ka yihiin. daryanka rasaastuna ay haraysay inta badan caasimadda Khartoum. Daglo ayaa Twitterkiisa ku qoray fariin oo ugu yeerayo beesha caalamku inay soo farageliso oo ay wax ka qabato Burhaan oo uu ku tilmaamay sida uu hadalka u dhigay nin islaami ah oo mayal adag oo wada duqeymo ka dhanaha dadka rayidka ah. waxa aan sii wadi doonaa in aan baacsanno al-Burhaan oo aan cadaaladda hor keenno. dagaalka aan qaadayno waa qiimaha aan ku bixinayno dimuqraadiyadda, ayuu yidhi. dhankiisa Burhaan ayaa fariinta keliya ee uu diray tan iyo markii uu dagaalku bilowday ugu sheegay Al Jazeera inay amakaha ku noqotay sida uu hadalka u dhigay dagaalka ay RSF ku qaaday gurigiisa, isagoo yidhi waxa dhacaya waa inay naga hor istaagaan in ay dhismaan ciidamo aan ka ahayn kuwa qaranka ee Suudaan. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax oo ka mid ah ardayda wax ku baratay Khartoum ayaa sharxaya jawiga magaalada Khartoum. dagaalka hadda xooggiisa wuxuu ka socdaa bartamaha caasimadda Khartoum. haddaan markaasi ku sii sheego aaga airportka, sidoo kale xarunta lagu taliyo taliska ciidamada militariga, sidoo kale waxaa la sheegaya in dagaalku ka socdo xarunta markaasi ee madaxtooyada markaasi dalkan looga arrimayo. dagaalka ayaa waxaa qayladhaan ka soo saaray beesha caalamka oo ku baaqday in dirirta si degdega loo joojiyo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in sii wadista colaadda ay kaga sii dari doonto xaaladda ba'an ee bini'aadanimo ee dalkaasi ka jirta. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku booriyey dhinacyada dagaalamaya inay si degdega dagaalka ku joojiyaan ayna wada hadal furaan. urur goboleedka IGAD ayaa isna Suudaan u diraya 3 madaxweyne oo ka socda bariga Afrika, waana madaxweynaha Kenya William Ruto, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir. rabshadaha ayaa argagax ku abuuray dadka reer Suudaan iyagoo ka cabsanaya inay colaaddu isku bedesho mid waqti dheer qaadata, xilli ay filayeen in militarigu ay xukunka dalkaasi ku wareejiyaan xukuumad rayid ah. Cabdiraxmaan Isaaq Shangax ayaa mar kale sharxaya dareenka dadweynaha reer Suudaan. shacabka walwal iyo walaac dheeri ay ka muujinayaan dagaaladan si daba dheeraanaya ee socda. saa la soconno marka militariga waa maalmihii shalay iyo daraad waxaa lagu dhawaaqayay xabad joojin iyo markaasi wada hadal dhanka militariga wax ku gacanseereen in markaasi ay la fadhiistaan ama wada hadal ay la galaan ciidamada RSF-ta. dagaalka oo ay ku dhinteen dadka badan 100 qof ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 1,000 qof ayay hay'adaha gargaarku ka digayaan inay ka dhalato xaalad aadannimo oo daran. Suudaan oo ahayd dal ay waxbarasho u doontaan arday badan oo ka soo jeeda Afrika iyo dalalka Carabta qaarkood ayaa hadda waxa ku xayiran arday badan oo ajaanib ah. xaaladda ardaydaasi
oo ay ka mid yihiin tiro badan oo Soomaali ah ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Cabdiraxmaan Shangax. Soomaalida badankood waxay ku sugan yihiin markaasi xeryaha jaamacadaha ay dhigtaan ardayda Soomaaliyeed ayaa marka dagaalada ka muujiyay walaac iyo walwal dheeri ah laakiin hadda waxay Soomaalida ku bad qabaan guryaha markaasi ay joogaan jaamacadaha ah ma jiro wax dhibaato ah hadda markaasi la soo diristay Soomaalida. RSF oo 2013 uu aasaasay hogaamiyihii militariga dalkaasi muddada dheer xukumayay Cumar al-Bashir ayaa horay u ahayd maleeshiyadii Janjawiid ee dowladdii al-Bashir ay u adeegsatay dadka aan carabta ahayn ee laga badan yahay ee ku nool gobolka Darfur iyadoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal. Dagaalkan ayaa qarxay kadib muddo uu soo jiray muran u dhaxeeya Burhaan iyo Daaglo oo ku aadan qorshe lagu doonayay in RSF lagu daro militariga, taasi oo ahayd shuruud muhiim u ah heshiis lagu soo afjarayo qalalaasaha dalkaasi ka jiray tan iyo 2021 oo ay militarigu awoodda maruuqsadeen. Labada dhinac ayaa midba kan kale wuxuu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay iyagoo guulo kala sheegtay oo ay ku jirto maamulka madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda. Sheegashooyinkaasi ayaan si madax bannaan loo xaqiijin karin. aad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala soo codsiinayay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha ayaa soo jeediyay in wax badan laga bedelo qaabka ay dawladdu u wajahayso arrimaha bini'aadminimada isagoo sheegay in la joojiyo isdhexyaaca hay'adaha dawladda Soomaaliya sidoo kalena si degdeg ah loola xisaabtamo hay'adaha samafalka. Dhinaca kale Cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu ka mid yahay dad badan oo su'aalo ka qaba qaabka ay xukuumadda Soomaaliya wax u wado haatan. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waraysi kula yeeshay stuudiyaha VOA ee Washington waxaana uu weydiiyay sababta deeq-bixiyaasha aysan u bixin lacagtii laga codsaday ee abaaraha. 12 sano ugu dambeeyay 8 bilyan ku baxday Soomaaliya oo mucaawino ah wali abaartii waa taaganta sanadkii hore 1.4 bilyan dalbatay haddana 2.8 double aad dalbanaysaan walaal aad dalbanaysaan dhibaatadii waa sii kordhaysaa dhaqaalaha xaguu aadaa waa isla xisaabtan markii Soomaaliya beesha caalamka waxay ku heshiiyeen mutual accountability waxa isla xisaabtan laba dhinaclaha lagu heshiiyay dhinacan kale lama xisaabtamo dawladda Soomaaliya ma la xisaabtanto hay'adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka ma la xisaabtanto mudnaanta ay dawladda Soomaaliya u baahan tahay miiska looma saaro waxa dawladda Soomaaliya ka saari kara gacan horsiga iyo tuugsiga iyo inay ku tiirsanaato ajnabi ma laga la xisaabtamo saas daraadeed waxa loo baahan yahay kow la xisaabtan saan la xisaabtan hay'adaha loo nimaadna waxa u baahanahay dadkii la xisaabtami lahay shaqooyinka ayaga la xiriir in la xijiyo ma dhici karto inaan sanadkii hore baar dheer tagay aniga abaaran aan u tagay inaan dadka ka caawino oo hay'ado international oo carbeed aan waday si dadkaas loo gargaaro sanadkan hadda markii laga soo wareegana baar dheer waxay dhex jiiftaa biyo baxo oo dadkii waxa dilaya fatahaada dilaysa suuragal ma aha inaan saas ku jirno 30 sano fatahaad iyo abaar dhexdeeda adduunkan oo inagu sheegtay inuu balaayin lacag nagu bixiyay xagee ka qaldan tahay su'aasha article ahaan u qoray oo joornaalada caalamiga ku qoray meelaha furamiyadan ka sheega doodaasaan la tagaa laakiin aniga dooda ugu soo noqonaysa waxay tahay dawladda Soomaaliyeed ha la timaado istiraatiijigi iyo go'aanadii howlahaas wax looga qaban lahaa taas anaga nagu soo noqonaysa Soomaaliya hadaan ayaga ku soo noqonaysa maxaa waaye in ay waxaan iska taa industry business iska noqotay wax laga ganacsaday iska noqday arrimihii humanitarianka ayaan ku soo noqonaysa dadka ka shaqeeya waliba kuwa fulinta ah ma kuwa deeqda bixiya ka deeqda bixiya kana u soo dhiiba kan waaye shaqada waxa meesha kula habsaamay oo haraadiga ku noqday runtii waan gartay ergeygii waxa tahay madaxweynuhu magacaabay abaaraha dhibaatadu waad soo aragtay marka dibadda u baxdid iyo waxaad kala kulmaysid lacagtii waad sheegtay inay imanayso oo hay'adihii qaabilsanaa loo dhiibayo hase yeeshee sidee la doonayay aan loo samaynaynin marka qof kaaga mudan ma jiro inaad madaxweynaha la fadhiisatid inaad la fadhiisatid hay'adda sharci dejinta hay'adda fulinta oo u sharaxid dhibaatadu halkanay ka jirtaay sideen u awdnaa marka arrintaa ma samaysay dawladda mu sheegtaa ha constantly madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dadka madaxda executive-ka inta aan arko waa ka gaarsiiyaa in loo baahan yahay qaabka loo wajahayo arinta humanitarianka annaga Soomaali ahaan inaan wax ka bedelno si wax uga bedeli karna saddex arrin loo baahan yahay mid waa hore u sheegay dad karti u leeyahay in la xijiyo dadka wax la qabanayo waxa wasaaradaha ama hay'adaha quseeyo la macaamilayo ayaga labo in dawladdu ay la timaado policy mudnaan ay tiraahdo waxa aan rabna anaga saan way hala sameeyo cidda sameynayna out
wadamo badan oo sameeyaa jiraan iska takadaad sameey karin this is waxa aan u baahanahay annaga waa in ayaga lagu dawafaylaa mid saddexaad maxaa waaye wada shaqayn dowladda dhexdeeda coordination inaysan wasaarad kale ama hay-ad kastaaba keligeed dhinac u bixin oo keligeed dhinac u ordin oo dowladdu ay wada socoto ay coordinationkaas ay wada leedahay ay wada shaqaynayso saddexaas dii la helo waxaan isleeyahay dadkaana dishay runtii waa laga qaban karaa sida maxaa looga baahan yahay gargaar bini'aadanimo wallaahi gargaar bini'aadanimo mar kasta oo dad dhibaato ka dhacdo waa u baahan yihiin oo Soomaaliya hadda dhibaato ka jirto oo waa loo baahan yahay laakiin ku tiirsanaanta waa waxa aan loo baahnayn in anaga gargaar ku tiirsanaana ceeb ah 30 sano hadda marayna maalmo social media waxa la wareejinayay 92 markuu madaxweyne Bush xariiqa qaxootiga tagay iyo Guterres xariiqa qaxootiga joog waa sawir ka bixinaya meeqa laga joogaa 30 sano ka bacdi xariiqii qaxootiga kaamkiya wali dadka Soomaaliya ay taagan yihiin waa macnaheedii waa inaan marka aan asaan uga bixi lahayn taas fiiri waa ceeb qaran oo waxay dhihi jireen maaragtay macnaheedu jiray ceeb qaran waaye waxa annaga hadda haysta macnaheedu sariigtii qarana u baahanahay marka si aan sariig qaran ula nimaadnane annaga isku jeedkeena inaan ka baxno waaye oo baashan hoose oo reeraha iyo deegaanadii annaga maanta aan isku maqanahay ama shakhsi ahaato ama qabiil ahaato ama deegaan ahaato sariig qaran saa ula nimaadno oo dad qaran ahaan u xishoonaya u noqono waa inaan dee tuugsiga aan ka baxno waan gartay su-aasha kalen damacsanahay ama aan doonay inaan ku weydiiyo waxa weeye siyaasi horada ahayd waa tartantay waa laga badiyey dabcan sida aan ognahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guuleystay meesha inkastoo dowladda ka tirsan tahay hadda oo laga yaabo inaadan sidii la doonayey uga hadli karin si wax u socdaan haddana siyaasaddu meesha u socotay iyo bal haddaad aragtidaad nala wadaagtid والله دي أنيقا مدحوينها هرتا دولة هذا عصبة حسن شق دجال كذا شباب كوي يقوم يمسنين واهي شق دي إن إسكور هذه سو سياسة حسن لإنه كشقيس وقبل دي دولة قبل دي وهذا السنة بدأ يكون ذا الجوجان وهذا هذا اللي كله جرته كبرمايز بدن دولة بسمين سنة واهي جرته وعلينا استابيليتي أو ضد الدستور كي نيغوشيشن كذي وحصل أي سعودان لين عيدين عفينته وهذا أن هبس أن كلنا هيبة إن عندنا عفنتي أن جاري إن هذا وحيالها بوستيف كا دولة هذا كشق يسي أولا إذا حشق صعب باللعبي دولة محمد فرماجو ويسي ودسروتي ملفي عن جارسيسي هذا إن لما استيران دولة أي كوجرتاه أيضا نفتي إذا وعلينا بوستيف لكن الحين السنة كوري كوجرا لما قياسي كرو هذا صو هاي لكن يودو هذا وكسو عضو دايركشن أهان محمى إن شباب كلا دجالمو إن دين عفنت لقى شقيو إن دولة قبلها اللي اسكوهاي أس دايركشن هان اتجاه هان لين على الوسط دايركشن كانوا مهم محمى لكن ضد بدنا سؤال اسكو يدي كرا مركي لقى تجا مدحوينها هوش كلا صعد حكومة هان هوش اللي ربي متى هاي ضد بدنا سؤالك قبل ضد كسان كمدها أنا مركز تنا والدبيعي إن المراجعيو إن هوش حكومة أي قبنيسو أما هديتها هاي كرتيده حقيقة ama hadday tahay ka jawaabista baahida dadka ama hadday tahay nooleynta public spirit-ka ruuxda dadka ila nooleeyo allan dawladdu waa inay dadka ruuxdiisa ay nooleysaa ay ku kalsoonaadaan ay tahay taas aniga dadka su'aalaha runtii ka qabaan aan kamid ahay oo dhaliilna ka keeni kara waxaan dhaliil lahayn ma bajiraanba laakiin ilaa hadda aan dhaliisha aan qabo iyo aragtida aan qabo madaxweynaha si barayfada inaan u sii hadda go'aankayga yahay aniga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ergeyga gaarka ah ee dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha ayuu ahaa oo stuudiyaha VOA magaalada tan Washington ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan naga xusuusinay in wareysigaasi oo dheer aad kala socon kartaan website-keena voasomali.com suuqyada ganacsiga ee Soomaaliya waxaa ka socda diyaar garow loogu jiro damaashaadka maalmaha ciida laakiin boqolaal qoys oo ku jira xeryaha barakacayaasha ayaan haysan awoodna u lahayn in ilmahooda ay u iibiyaan dharka ciida wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo warbixintan soo diray ayaa waxa uu sheegayaa in caruurtan aanay cidna u maqnayn ceelna u qodnayn diyaargarowga ciidda ee ka jira suuqyada Muqdisho sanadkan waxa uu ku soo aadayaa xilli nolosha ay ku adag tahay dad badan awoodna aysan u lahayn inay wax iibsadaan marka laga yimaado sicirka oo sareeya haddana qoysaska danyarta ah
iyo barakacayaashu uma eka carruurtooda inay farxayaan sanadkan sababtoo ah ma jirta dhar cusub iyo agab ciideed oo loo iibiyey iyaga oo rajo xun ayay iska joogaan guryahooda. Faadumo Maxamed Cali oo ka timid Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay gacanta ku haysaa 18 carruur ah oo ay qaar dhashay kuwa kalena ay ilmaheedu dhaleen. Dhammaantood ma jiraan wax loo iibiyey, xaalkooduna waa cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Carruurtay lii ma karnaan lii qofood gabartooni siyeeda qabto ilaahay markii jire to siyed to markii la jire ulaadiyana todoba wali inbu ilaahay markii ilaahay nolol qabe ha shaqaysadayaan wanishkii sheenan dabka ka shibdayaan wal kala haysadaan male walay oonay toominka ka dhagdaagna bacamale sar isuma yasrah ya ka dhagdaayaan hatana saasay ninka gargaar ilaahay gargaar ka faday. Faadumo waxay hore ula daaladhacaysa nolosha qoyskan oo ahaa beeraley ay saameysay isbeddelka cimiladu taas oo ku qasabtay inay soo maciinsadaan xerooyinka barakacayaashu ay ku nool yihiin ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. beerataa baday beertii oo abaarsatay hoola oo dhamaadan ilaahay markii jire sideen to kooy hadana wixii uu dhisanay bawal oo ku boogdaan male ilma wal siyamale amarkii alla jire hoob ilaahay gargaar ka faday hoob isu wal qabtan inay gargaartan karkiidna siidan amarkii alla jire saasa siinka ma hadiyeen. Inkastoo aysan hadda awood badan u lahayn ciidsiinta ilmahan waxa kaliya oo ay hadda dhowrayso waa gacan iyo caawimaad uga timaada shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aanba ka warqabin xaaladeeda. ilmahe kala iideen oo haysadan aan wala haysana kulli amarka mar ilaahay kulli oo sidoo leeska kiideen amarka mar ilaahay meel wala ka sheena oo leerto wala ka gadaw kulli ilaahay jeel ku sugaane kulli inni indada lang lay fadaan wal kala na haysadon dhariideedan ka gadaw raamale. Soomaaliya waxaa ku nool ku dhawaad 3 milyan iyo barakacayaal oo u badan haween iyo carruur sida ay sheegayaan hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya dalka. xilliyadan oo kale oo loo diyaar garoobaya ciidana waxaa yar in la xasuusto ubadka qoysaskan ay dhaleen si farxadda ay qayb uga noqdaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka qubanaha VOA oo mar kasta aad ka heli kartaan website-keena www.voasomali.com. qadar yar dabadeed waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin iyo waxyaabo kale. mar kale kulan wanaagsan barnaamijkeena qubanaha VOA wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha 74aad ee idaacadda VOA ee magaalada Washington DC. haatanna waa xubintii sayniska iyo teknolojiyada waxa inoo haya oo stuudiyaha 74aad igu weheliya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. aad baad u mahadsantahay Caasha. aan ku bilownay gobolka Montana ee wadanka Mareykanka ayaa noqday gobolkii ugu horeeyay ee ansixiyay xeer lagu xayirayo adeegsiga TikTok iyadoo loo sababeynaya inay dhici karto in xogta TikTok ay u gacan gasho dawladda Shiinaha. aqalka wakiilada gobolkan oo ay u badan yihiin xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga ayaa xeerkan meel mariyay maalintii Jimcihii. waxaana xeerkan uu sharci darro ka dhigayaa in qofku uu mobilkiisa gacanta ku soo dejisto ama uu ku download gareeyo application-ka ama barnaamijka TikTok iyadoo ilaa iyo $10,000 lagu ganaaxi doono maalintiiba shirkad kasta oo u diyaarisa dadku in ay soo dejisan karaan barnaamijkan sida shirkadaha Apple, Google ama isla shirkadda TikTok ee barnaamijkaasi leh. waxaana lagu wadaa in xayiraadani ay gobolkaasi Montana ka bilaabanto bisha January ee sanadka 2024. aaladda TikTok ayay dalkan Mareykanka ka isticmaalaan in ka badan 150 milyan oo qof. geesta kalena saynis yahano ku sugan gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka ayaa cilmi baaris aan caadi ahayn ku wada nolosha deegaanka iyadoo ay isku dayayaan in ay shimbiro dhintay dib hawada ugu diraan oo ay shimbirahaasi duulaan.
saynis yahanadan oo ka tirsan maxadka macdanta iyo weliba teknolojiyadda ee ku yaala Socorro ayaa raba inay shimbiraha dhintay u duulaan amaba ay u bedelaan qaar u duuli kara hanaanka diyaaradaha loo yaqaan droneska ee aan duuliyaha lahayn oo kale. shimbirahan ayaa lagu rakibay isla markaana lagu tijaabiyay xayndaaba ku yaala jaamacadda iyadoo oo looga gol leeyahay in si wanaagsan loogu fahmo samayska iyo weliba hanaanka duulimaadkooda iyadoo xogtana loo adeegsan karo mustaqbalka hawada duulimaadyada iyo weliba hawlahooda. dad badan ayaana aaminsan in midabka shimbiruhu yahay dariiq ay kuwa kale ay ku soo jiidan karaan shimbiruhu iyo weliba waxtarka midabku inuu yahay uu leeyahay amaan idhaahdee duulimaadyada inuu yahay mid wax ku oola. shimbirahan macmalka ayaa hadda duuli karaya keliya 20 daqiiqo waxaana marxaladda xigta lagu wadaa in la eego sidii ay hawada u geli lahaayeen intan in ka badan isla markaana tijaabo loogu sameyn lahaa shimbiro iyagu si caadiya u noolo aan kuwan macmalka ahayn. ugu dambeyntiina wadanka Kenya ayaa daahfuray dayax gacmeedkoogii ugu horeeyay ee ay kula soconayaan dhulka iyadoo sabtidiina uu xambaaray rocketka SpaceX isla markaana loo ganay amaba isla markaana laga riday aan ilaahdee wadankan Mareykanka. dayax gacmeedkan oo ay farsameeyeen 9 injineer oo u dhashay wadankan Kenya ayaa ururin doona macluumaad la xiriira beeraha xoolaha iyo weliba deegaanka. waxyaabaha uu xogta ka ururin doono ayaa waxa ka mid ah fatahaadaha abaarta iyo weliba nolosha xayawaanka iyadoo mas'uuliyiinta dalkaasina ay ku wadaan inay xogta laga soo helo ay u adeegsan doonaan maareynta masiibooyinka iyo weliba la dagaalanka cunto yaraanta. gantaalkan Falcon 9 oo xambaaraya dayax gacmeedkan oo isagana loo yaqaano Typhoon ayaa si dhib yaraan ah uga duulay saldhigga Vandenberg oo ku yaala gobolka California wadanka Mareykanka kadib 3 jeer oo dib loogu dhigay cimiladu aad u xumeed aawadeed. iyadoo dayax gacmeedkan la isu rakibay isla markaana gacan laga helayay shirkadda hawada sare ka shaqeysa ee laga leeyahay dalka Bulgaria ee loo yaqaano Indosat waxaana uu ku kacay lacag dhan 50 milyan oo shilinka wadanka Kenya isla markaana u dhiganta 372 kun oo dollarka Mareykanka muddo 2 sanadood gudahooda. daawadayaal xubinteeni sayniska iyo teknolojiyadu intaas ayay ku eegtahay waxaan dib ugu celin doonaa Caashe Ibrahim Aadan. aad iyo aad mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo xubinta sayniska ayaan intaas uga gudbaynaa. ugu dambeyntiina helitaanka waxbarasho dhammaystiran iyo barashada diinta islaamka ayaa noqon karta mid ku adag waalidiinta ku nool gaar ahaan mid ka mid ah gobolada Mareykanka laakiin waxaa jira 140 dugsi oo islaami ah oo la aqoonsan yahay gudaha dalkan Mareykanka. wariyaha VOA da Rivan Dawi Santos ayaa booqday mid ka mid ah iskuulada islaamiga ah oo ku yaala gobolka Missouri. Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya warbixinta. qiyaastii goob 20 daqiiqo u jirta bartamaha magaalada Kansas City ilaa 200 oo arday ayaa dhigta dugsiga islaamiga ah ee magaaladaas. waxaa noo fudud in aan ku dhaqanno diinteenna ma jiraan arrimo badan oo naga joojinaya sababtoo ah dugsiyada kale waa inaad weydiisataa waqtiyo gaara si aad u tukato. dugsigan oo la aasaasay 1989 ayaa ujeedadiisu ay tahay in uu diyaariyo dhalinyarada muslimiinta ah. bulshadu waxay go'aansatay in ay ilaaliyaan dhaqankooda iyo diintooda waxa ugu muhiimsanna waa inay badbaadiyaan muslimnimadooda. laakiin uma baahnid inaad muslim noqoto si aad arday ahaan u dhigato ama aad u codsato inaad ka shaqayso iskuulka islaamiga ah ee magaalada Kansas City. waxa uu ku shaqeeyaa manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri iyada oo lagu daray daraasaadka islaamiga ah iyo barashada luqadda carabiga. ma aha oo keliya barashada islaamka laakiin sidoo kale xagga tacliinta waxay qabteen shaqo cajiiba. gabadhayda oo u malaynaysa inaysan ku fiicnayn xisaabta ayaa laakiin hadda waxay ku jirtaa tartanka xisaabta ee waddanka oo dhan. Fasiila Sayid waxa ay dugsigan ka diiwaangelisay dhammaan 3 carruur ah laakiin maamule Xamuuda waxay qirtay inay adkayd in la shaqaalaysiiyo macallimiin tayo leh oo ku filan si loo abuuro jawigan waxbarasho. macallimiinteennu shahaado ayay haystaan jaamacadaha dalkan ayay ka soo qalinjibiyeen badankoodu waxa ay haystaan shahaadada mastarka. haddii aad mushaarkooda barbar dhigtid dugsiyada dowladda farqi weyn ayaa u dhexeeya way ka yar tahay. laakiin ardaydu waxay yidhaahdeen qof kasta waxa uu ka faa'iidaysanayaa sida ugu badan ee uu awoodo.
xubin kastaa waxa ay ku qasbanaatay inay $100 ka bixiso qalabka ugu dambayntii hadda waxaan helnay qalabkii waxaan rabaa inaan qaato dariiqa injineernimada iyo farsamada casriga ah ee kombiyuutarada dugsiga islaamiga ee magaalada Kansas City waa mid ka mid ah ilaa 140 dugsi oo islaami ah oo la aqoonsan yahay oo ku baahsan guud ahaan dalkan Mareykanka. aad ayuu mahadsan yahay waxaa nala socodsiinaya warbixintaasi Xuseen Barre intaasna waxaa ku eeg barnaamijkeennii qubanaha VOA ee toddobaadkan wixii fikir iyo talo ah noogu soo dir ciwaankeena qubanaha @voanews.com intaan dib u kulmi doonno mar kale waa bahda qubanaha oo idin la sidaas iyo nabadgelyo